marka wax yar bal waxaan iska taabsiinaynaa maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam dad mashaayikh badanna waa joogaan hadii siiradiisii laga hadli doono maxabadiisa sida aanu ognahay oo nusuusta aanu ugu tagi doono ay iimaankanagi uu ku xiran yahay oo qof kastoo muslim ah ay waajib ku tahay cayni ah inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jeclaado inaan wax yar iska taabsiina marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maxabadiisa aayadda quraanka waa maqlaysin ilaahay wuxuu ku yiri qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum qolooyinkii dhihi jiray annaku ilaahay baan jecelnahay ilaahayna waa na jecel yahay oo raadi buu naga yahay waxa ilaahay yiri hadaad waxa ku tiraada nabiyullaahi maxamed oo hadaad ilaahay jeceshiin fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum markaasa ilaahay idin jeclaanaya raadi idin ka noqonaya fattabi'uni hada marka la leeyahay itibaacu wuxuu laazimsanayaa maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qofku waxa uu dabagalahayo iyo qofka uu ku dayanahayo waa qof uu jecel yahay waxa markana la ka rabaa qof kastoo islaam ah maxabata ma inuu nabiga jeclaado calayhi salaatu wasalaam ka soo fushay ikhtiyaar iyo tadabbur iyo tafakkur nabiga calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka uu ku leeyahay iyo amaalka uu ku leeyahay iyo asxaanka uu sameeyay marka uu fiiriyo wax adigu aad nabi maxamed u sameeysan aan la arag calayhi salaatu wasalaam marka qofka maxabatam aan laga helo markaasa waxa la heli karaa itibaac uu nabiga raaca calayhi salaatu wasalaam markaas culimadu islaamku ay yiraahdaan waxa laga heli karaa itibaac qofka in maxaba kaamila laga helo hayelay inal muhibba liman yuhibbu mudi' qofka uu jecel yahay oo ikhtiyaarkii u jeclaaday iyo dabcigiisa oo wax ku qahraya la arag uu daba jooga laakiin qofku hadaysan wuxuu maxaba aysan ahayn oo xataa wax lagu qahraya ay tahay waxa uu daba joogi karaa ama uu ku dayanaya waa wax yar oo waqti aad u yar marka maxabadaasana la ka doonaya taamka qofku inuu la yimaado si aan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan u raacno oo nusuustii kala lagu tilmaamay qofka maxabada nabiga hela calayhi salaatu wasalaam halaawatal iimaan inuu helay ila waa xadiidka bukhari iyo muslimka uu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان صدح قفكي خصلا لغا هلا بو يري وحو هلاي بو يري إيمانك معانكيسي إيا اللذذي سيبو هلاي بو النبي عليه الصلاة والسلام وهل من كان الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما قفكو مركو يهي إلهي إيا الرسول كيسا وحكستأو كتشعليهي naftiisiibu ka jecel yahay maalkiisiibu ka jecel yahay awlaadiisiibu ka jecel yahay waalidkiisiibu ka jecel yahay dadkoo dhan buu ka jecel yahay qofkaas wuxuu helay halaawatal iimaan markii maxabada saadiqada qofka laga helo waxa ka laazimaya markaa itibaac uu qofkii nabiga calayhi salaatu wasalaam hawadiisuba ay raacsan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqi iyo shariicadii uu la yimid سيدي حديث كلامه النبي كوي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قفكين إيمان لقمه لم بيري إلا هودي سؤال راعسنتها وحي أن لا إن بدو هودي سؤال راعسنتها معناها وحا عشقنها يو وضنينها يئنو راعه والنبي عليه الصلاة والسلام شريعة أوليم qofka hada hawadiisi iyo cishqigiisi uu markasta ku xiran yahay inuu nabi maxamed raaco waa qofka ogow maxabadii ay kaamil tahay oo qalbigiisu u buux qof aan maxaba qalbigiisi ku jirin hawadiisu uma socoto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka kale oo maxabadiisu qalbigiisa ku jirta uu rabaa inuu daba galo
marka sida xadiidku uu sheegay an yakuuna allahu wa rasuuluhu axabba ilayhima mima siwaahuma waa kii xadiidka kalena nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkiin ma uusan rumayn buu yidhi ilaa uu iga jeclaada buu yidhi waalidkiisa iyo waladkiisa iyo wanaasi ajmaciin dadka oo dhan kulli macnaa wax allaala wixii nebi moxamed uu ka soo haray uu nebi moxamed ka hormariyay calayhi salaatu wasalaam waa kii dee sayidina cumar uu yidhi radia allahu canhu wa ardaah yaa rasuulallahi dadkao dhan waan kaa jeclahay buu yidhi ilaa nafsiha allatii bayna jambaya buu nafsadayda mooyaane inta kale waa kaa jeclahay weli baa layidhi marka iimaankaaga kaamil ma ahan markaasuu yidhi xataa min nafsi baan hadda yaa rasuulallahi kaa jeclay markaasuu nebigu ku yidhi alaana yaa cumar haddaa iimaankaaga kaamil yahay buu markii qofka maxabadaas taamkaa laga helo oo kaamilka uu nebiga calayhi salaatu wasalaam naftiisii uu ka jecel yahay oo ehelkiisii uu ka jecel yahay oo dadkoo dhan uu ka jecel yahay wuxuu markaas u sahlanaanahaya qofkii oon wax dhibaataa ku qabanayn iyo wax mashaqaa iyo wax kulfo ah inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iska dabagalo oo iska raaco marka hadda wuxuu qofku islaamkaa uu dareemi karaa waa aragtay hadda qofkii iyadoo islaam la yahay wax allaala wixii shareecadii itibaaceedii iyo dadkii way ku adag yihiin waxyaalahaas waxa keenaya waxa weeye maxabadii halkaan ahayd baan kaamil ahayn oo qofka waxaa laga yaabaa haddii xadiidka nebiga loo sheegaya calayhi salaatu wasalaam ama saatana nebi moxamed sameeyey ama saatanuu nebi moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam inuusan shucuur badan iyo ixsaas badan uusan samaynin maxaa yeelay halkan qalbiga ah ayaan weli buuxin oo faaruq ah markaas qofkii waxaa ku adkaanaysa itibaacii uu nebiga raacayay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay maxabadii buusan haysan marka ilaahay muxuu aayaddii aan ku noqona ilaahay sii yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum markaas aad nebi moxamed raacdaan baa la yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum ilaahay baa raaddi idinka noqonaya idin jeclaanaya dunuubtiinnana waa laidiin saamaxahayaa hadda markii maxabadii ilaahay keliyaha la cabiray mar haddii qofka la yidhi ilaahay baa raaddi kaa noqonahaya qofkaasna ogow nebi moxamedna raaddi buu ka yihi sidoo kale maxabada nebiga iyo maxabada ilaahay waa mutalaazim qofka nebi moxamed jecel laazim ilaahayna wuu jeceli qofka ilaahay jecel oo ilaahay ku xirana nebi moxamedna wuu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam waata aayadda kaleo qur'aanka ilaahay ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin dadka waxaale qaar ka mid a hadday diinta islaamka ay ka ridoobaan baali waxaan ku siinaynaa baa layihi nebiyullaahi moxamedow qoom ilaahay uu raadi ka noqday hadda adiguna aad raadi ka tahay wey adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin dadka mu'miniintaana ruuxamo oo u naxariisanaya waa sifadii dee dadka mu'miniinta lagu yaqaanay acizatin cala alkaafiriin marka maba dhici kartaba qofku inuu yidhaahdo ilaahayna waa jecelahay nebi moxamedna ma jecli waa waxa yuhuudiya lagu beeniyey ama uu yidhaahdo nebi moxamedna waa jecelahay ilaahayna ma jecli wax dhici kara ma ah qofku marka waxaa la rabaa maxabadaasu halkee bay ka imaanaysaa maxabadaasu waxay ka imaanaysaa qofku inuu nusuusta shareecada uu tadabburo oo uu ku tafakuro oo uu nadrada ku badiyo sidoo kale uu fiiriyo nebiga calayhi salaatu wasalaam amaalka iyo axsaanka nebi moxamed uu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyo nicmada weyn oo nebi moxamed sababta ugu noqday
إلا آيات القرآن كواتن إلهي وكير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بإلهي الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بل النبي عليه الصلاة والسلام بعضك مؤمنين تان نفسدوا أوجا أوليسن بل نفسد أدوغو أدلى هاي نبي محمد سيدا أدوغ نفط أدو إلى لنيسد وأدوح الله لوحي مكروه هذا يوح الله لوحي مضر هذا أدو قدف عنيسد نبي محمد بكاقد دال بدل نفسد هذا عليه الصلاة والسلام وكائلالين بدن وح مضراه وأما حسية إنه يكون عضا أما وح معنوي إنه يكون عام أما مد دنوي يكون عضا أما مد أخروي يكون عضا انتبه تاسنا واحد آيات فسرها هي حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام وكحديث كإمام مسلم يوريين باوحوها نبي عليه الصلاة والسلام وحير أنا أولى بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل رواية وحي هذا أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالنبي عليه الصلاة والسلام سيدا لفظك أيضا عبرتبه قف كستا أو مسلمة أو مؤمنة أنا نفتي سوء ليسن بي أوليه بالنبي سيعدي عليه الصلاة والسلام وحير من ترك مالا من ترك دينا أو ضياعا فادعوني فأنا وليه بالنبي عليه الصلاة والسلام قفك الدين كتغور انت قفك أما ضياعا أما المعيال أبو كتغي وح كفالة قادة يلا ما أركو وح ضمانات قادة يلا ما أركو وح قودينها يلا ما أركو أنا يقول يا ربي فأنا وليه دينتنا أنا بحنا هي بيري المهاسنا أنا كفالة قادة يبي النبي عليه الصلاة والسلام هذا نواع أرقتي مالك النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا هذا ساعدنا أن مدح شوقه waxaa laga yaabaa kii dad ugu dhawaaba jooga ilmihii halkaas ay ku dayacan waa aragtay xadiisa in badan calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka marka uu dhinto sida xadiis badan oo imaam muslim iyo warinayaan cadanayaan nabigu wuxuu dhigi jiray war wax deyn ah ma lagu leeyahay waa intaan wali la aasi qabrigiiba la geyn hadii la deyn waa lagu leeyahay